xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac oo maanta si wada jir ah ula hadlay saxaafadda madaxa bannaan ayaa waxa ay ka hadleen afartaasi qodob ayaa waxa ay kala ahaayeen waxayna ugu horeyntii taageero u muujiyeen madaxweyne Muuse Bixi Cabdi go'aankii uu ka qaatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale go'aankii uu ugu dhawaaqay inuu furi doono xisbiyo cusub. waxaan halkan ku taageeraynaa madaxweynaha khudbad sanadeedkiisii oo labada gole ka horjeediyay ayaan aad iyo aad u taageeraynaa anagu haddaan nahay golihii deegaanka ee degmada Saylac khudbadiisa aad baan u taageersanahay. waxaa kaloo taageeraynaa ururada uu ku dhawaaqay oo furayo iyagoo waqtigoodii la joogo. waxa weeyeen maxsuubuun nimidnay dhowr qodob midda u horreysay waxa ay ahayd taageero loo muujinayo ama aan u muujinayno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi khudbad sanadeedkiisii uu ka jeediyey labada gole uu ka horjeediyey. dhinaca labaadna waxay noqon doontaa waxyaabihii Saylac dhexdeeda arrimaha bulshada ta ugu fudud ee maanta dalku ku badbaadi karaan waa taa in la furo ururadii siyaasadda oo dad badan oo wanaagsan oo dalka iyo dadkaba wax u qaban lahaa hankooga ay la yimaadaan fikirkoogii iyo ay waxqabadkii ay dadka iyo dalkaba u qaban lahaayeen ay soo saaraan. aad iyo aad baad u mahadsantahaan leenahay mudane madaxweyne. degmada Saylac waxaan maanta shirka jiraayid kaga hadlaynaa howlo badan oo deegaanka ka jira iyo in aan taageero u muujino madaxweynaha qaranka khudbadii uu labada gole hortooda ka jeediyey iyo go'aankii geesinimada lahaa ee uu ku iclaamiyey in uu furi doono ururadii siyaasadda ee dalka. madaxweynaha baryaan ku leenahay go'aankaas boqolkiiba boqol bulshadu way sugaysay. dalkana saddex xisbi baa hortaagnaa dad badan oo siyaasiyiin oo hankoogu heerkaa gaadhsiisan yahayna dalka uu joogay inay ka wanaagsanaadaan baa laga yaabaa. baryaan ku leenahay madaxweyne. sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Saylac oo isagu sheegay in ay muhiim tahay in madaxweynaha lagu taageero go'aanka masiiriga ah oo ka qaato marxalad kasta oo wadanka soo wajahda isagoona ku taageeray go'aankii uu ka qaatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ku dhawaaqidii uu ku dhawaaqay inuu xisbiyo cusub uu furi doono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. waan ku taageersanahay madaxweynaha go'aanka uu gaaray ee raganimada leh waan ku taageersanahay. waxaan leenahay farmaajada ninka tiisa daryeelaad kale ku dara horta kismaayiya ka dago garow taasaan leenahay inta Soomaaliland kisariyo taa ka dago madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa taageersanahay go'aan raganimo leh masiirka ummadda Soomaaliland oo horseedaya ayuu gaaray ayaan leenahay. hambaliyo waa leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka gaadho waan kugu taageersanahay. tan asxaabta la furayna waxa weeyaan waa qodob sharciya dastuuriya oo jiray awal oo habsaamay ayuu madaxweynuhu maanta go'aan raganimo ku gaadhan leh. waan soo dhaweynaynaa anagoo ku hadlaynaa magaca gobolka Salel iyo degmada Saylac. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan taageersanahay madaxweynaha iyaga. waxaan leenahay madaxweynaha iyaga mid wax la hoos marin kara ma aha. waxa uu baabiyey wixii la soo dhaweyay dabarjabinta ummadda Soomaaliland lagu waday ayuu si raganimo leh go'aan u qaatay waan ku taageersanahay. waxaana kana aan mid kale aan ka oran lahaa axsaabta mataqaanaa mucaaradka iyo dadka mataqaanaa hadalkooda magaranaysaa inta badan meediyuhu maanta waxay ku badan tahay hadalhaynta madaxweynaha safarkiisa iyo kulanka uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay hadalhayntiisa aad iyo aad u badan. waxaanu leenahay madaxweynaha waxa weeye waa astaantii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynuhu waa ciddaynu idmanay eenu u idmanay taladeena ay ummaddu u idmatay masiirkeena. marka waxa weeye haynu aaminna leenahay madaxweyneena haynu aaminno. madaxweyneenu maaha cid nin la hoos mari karo anigu sidaan aaminsanahay walaa farmaajo walaa qayru ay wax hoos mari karaan anigu maaha mana ogi. marka waxa weeyaan waxaan leeyahay bulshooyinka Somaliland
iyo shacabka reer Somaliland waxa weeye madaxweynaha saan ugu imanay masiirkeena aynu ugu daba fadhino وعلي أحمد ديري علي دقدرول ورك بدع TV مقالة زي